waddankan muujida Soomaaliya waxyaalo badan oo la yaab leh ku arkaysa yaa hadda madaxweynaha markaad aragtid Xasan Sheikh waxa maalin walba khudbad soo jeedinaya maalin walba wuxuu dhahay al-shabaab cadow al-shabaab la dagaalamo al-shabaab waa sidan al-shabaab waa sidaas yaa wax la iska dhahay ma waa kan safka iska dhahay dhigeysta maanta Soomaalida jirta cadow waa hal waa shabaab ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow qalbiga kala jira cadow intaan ka sheegnay cadow waa hal waa shabaab maanta waa labo waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay shabaabkana waa iska celinaynaa duulimaadka dibadda ka yimaada waa iska celinaynaa madaxweynaha markaa wuxuu dhahayaa al-shabaab hal weeraro waa cadow weeye laakiinse weerarkaas uu asaga uu amray dadka inay qaadaan haddii la ka waran madaxweynaha laftigiis baa weerarkaas dhawarjibin ku sameynaya marwaysan lahaydeen dhibaatadaas waxa la iska dhahay maaha caddaynteedii baa inta laydinka tusayaa indiina ku arkaysaan dhigiina ku maqlaysaan waxa la iska dhahayo propaganda ma ah marka madaxweynaha markuu dhahayo al-shabaab weerar lagu qaado waa arrin u baahan weeye cilmi waa arrin xirfad u baahan weeye laakiin sidii ku jirta waxa weeye markii oo xilal waxaa jira oo muhiima oo ku shaqo leh arrimaha amniga marka xilalkaas waxay u baahan tahay dadkii oo cilmiga u leh iyo xirfad u leh laakiin sidii ku jirta waxa weeye madaxweynaha arrimahaas xilalkaas wuxuu dhiibaa dadka oo ay isku tolka yihiin ama dadka saaxiibada yihiin baa loo dhiibaa yaa dadkaas waxay badanaa shaqooyinkaas xirfadna ma hayaan cilmigeedina ma hayaan yaa hadda kasoo qaada mar dhow waxaa la magacaabay taliya booliis oo cusub baa la magacaabay 2 maalmood ka hor marka ninkan waa nin iska shacbi ah wey si inta ujeeda ninkan baa loo magacaabay taliyaha booliiska marka ninkan waxa weeye cilmigeediina ma haysto xirfadeediina ma haysto yaa marka dhibkaadan waxay keenaysaa inuu madaxweynaha laftigiis waa asaga uu dhawarjibin ku sameynayo dagaalku u dhahayo al-shabaab lagu qaado kadib markay ansixiyeen soo jeedintii wasaaradda amniga ee ahayd magacaabista sareeyo guuto Asad Cismaan Cabdullaahi inuu noqdo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Asad Cismaan Cabdullaahi ayaa xilka kala wareegay taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya taliyaha booliska oo magaalada gobolka Banaadir asaga laftigiisa taa waxa weeye shaqada wuxuu ku helay familka madaxweynaha bay family darteeda yaa marka ninkan waxa weeye xirfadeedii shaqadaas oo loo dhiibayo xirfadna ma hayo cilmigeedina ma hayo marka waxa weeye wax la iska dhahay ma waa kan dhageyst videogan baa xaqiijinaya indiina adinka hadda ku arkaysan fiirso bal hal dhahay taariikhda waxbarasho taliyaha cusub ee maanta la magacaabay 2014 ilaa 2017 Horseed International University ayuu ka qaatay shahaadada koowaad maamulka iyo maareynta 2011 ilaa 2012 ayuu macadka luqadaha ee Frontier School Diploma English ka qaatay waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe ilaa iyo sare waxa uu ka bartay dugsiga Sheekh Xasan Barsane wasaaradda Soomaaliyeed ninkan waxa weeye askarnimo shughul ku leh ma xirfadeediina ma haysto cilmigeediina ma haysto yaa marka dhibkaas Soomaaliya ka jirta marka madaxweynaha wuxuu dhahayaa dagaal la qaado al-shabaab lagu qaado dagaal waxa weeye askarta waxa loo dhiibayaa iyo arrimihii amniga baa loo dhiibayaa dad oo aan cilmigeedii haysan xirfadeedii haysan baa loo dhiibayaa marka madaxweynaha asaabka koowa in uu arrintii dagaalku u dhahayo hal qaado inuu soo laftigiis u dhawarjin ku sameeyo haddana intaas kaliya ma aha taa ogtiina malayna mar dhow taliyaha nisa waa taqaanaan baa malayna ninkan baa loo magacaabay ninkan waxa weeye shaqada wuxuu ku helay madaxweynaha bay saaxiibada yihiin yaa marka ninkan shaqadaas loo dhiibay xirfadna ma hayo cilmina ma hayo yaa marka dhibkaas maanta jirta yaa marka dadkii oo xirfadda oo arrimaha amniga dad badan waa joogaan waddanka oo xirfadeedii haysta cilmigeediina haysta laakiin waa laga boodaa dadkaas yaa dadka oo laga booday waxaa ka mid ah ninkan ma taqaanaan baa malaynaya gooba baa la dhahaa yaa waa wasiirka haweenka laga dhigay yaa wasiirka haweenka baa laga dhigay marka ninkan waxa weeye 0.5 wey saas waxaa keenaysa 1.5 ah wey marka dhibaatadan oo ah in dad oo aan xilka aan ka bixi karin oo xil loo dhiibo waxa weeye dhibaato hadda cusub oo bilaabata ma xitaa farmaajo baa xitaa samayn jirta khaladkaas marka farmaajo waa taqaanaan baa malaynaya madaxweynihii hore
marka asaga wuxuu ninkan oo Fahdi Yaasiin la dhahay inta ugu jeedaan wuxuu magacaabay inuu noqdo taliyaha NISA ninkan inta ugu jeedaan Fahdi Yaasiin waa nin iska shacbi wey shuqul kuma laha arrimaha militariga waa kanba journalist ahaan jiray al-shabaab wuxuu shaqayn jiray al-jazeera shaqayn jiray marka dhikaar waxa weeye dhibaatadan waxa weeye waa dhibaato mar walba nin walba oo madaxweyne wadankan loo dhigo waxa weeye shaqooyinka oo muhiimka ah oo amniga ku saabsan dadkeeda oo xirfada u leh iyo cilmiga u leh lama dhiibaa dadka saaxiibada la leeyahay iyo dadka oo talka la leeyahay baa loo dhiibaa marka taas waa khalad weyn oo loo galayo arrimaha amniga oo wadanka marka khaladkaas markay galaan dadka madaxda laga dhiganayo khaladkaas waxaa jeebkan ka bixinaya dadweynaha waxa la iska dhahay maaha waa kan caddayntii fiirsada aamin 9:51 daqiiqo habeenimo ayuu qaraxan dhacay present ugu jeedaan waxa weeye qarax maalin walba wadanka dhaca hadda saan ugu jeedaan bakaariyo suuqa bakaariyo wey waxa la weerarayo waa dad shacbi oo masaakiin oo iska shaqaysanayso oo shuqul ku lahayn dowlad iyo siyaasad baa la weeraraya ma jeedaan marka taas waxaa keenaysa maamul xumada maanta wadanka caadadka ah dadka madaxda maanta laga dhiganayo asaant mas-uulkaas qaba caawa muqdisho waxaa laga maqlay qaraxyo kala duwan qaraxyadu waxa ay ka kala dhaceen degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka Banaadir qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay meel aan sida uga fogeyn saldhigga booliiska degmada Waaberi ee gobolka Banaadir dhalinyaradina eber baa la dhigay dad aan shuqul ku lahayn arrimo siyaasadeed oo meel iska fadhiya waa qarax eber loo dhigay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xalay meeshaan ku damaashaadaysa wadankooda oo ay ku raaxaysanayeen ku istriixay xalay waxa ka dhacay inay ku baaba'aan qarax waxa la raaxaysanaya masaajidadii iyo dugsiyada quraanka oo caruurta tagayaan baa la raaxaysanaya xilliga qaraxa uu dhacay waa saacada adiga xilli oo waqti wax barasho ahayd ardayna ay ku sugnaayeen masaajidka ay ku jireen arday badan meesha ku dhigato dumar iyo wiilal argagixisada al-shabaab durbaba waxay ku faaneen weerarkaasi xasuuqa barmageedada aan waxba galabsan loo geystay burburinta masjidka iyo malcamada quraanka kariimka lagu baranayay aan gudaha joogno wiilka la socdo gudaha galay anina shawradan aan fadhino waxa yeeray qarax weyn markuu dhacay anaga hay'ato waa falka naxnay ummadii oo meesha wax dhintay iyo wax dhaawacmay aniga markii banaanka dirbigaas kala dhinac dhanad burburay dirbigaas banaanka u baxna markii madaxweynaha baa mas'uulka ah waxaas oo qaraxya oo dadweynaha loo geysanayo sababtoo ah heelalka oo amniga ku shaqo leh oo muhiimka ah wuxuu dhiibay dad oo aan xirfadeeda haysan iyo cilmigeedan haysan marka madaxweyne laftigiisa baa dagaalka al-shabaab lagu qaaday asaga dhabarjibin ku sameynaya marka dhibka intaas kaliya kuma ekee xitaa markii la wareysto madaxweynaha dagaalka al-shabaab lagu qaaday halkee maraysaa waxa weeye runta ma sheego saan buu hadlaa dhegeysta dadka Soomaaliyeed maanta waxay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan meel kastoo ay joogaan dagaalkaasi meel fiican u maraya gabagabadiisi ayaana dhow marka maxaa dhacaya dowladda hadday amni ku filnaan weyda waa kan ra'iisul wasaaraha sharxaya waxa dhacaya marka askariga booliiska ama dowladda dadka jeclaysiin kara ama nacsiin kara ma qashan Soomaa marka dowladda hadday ku filnaan weyda arrinta amniga tawalnaya balaayaan waxay noo fadhidaa baldhaya dadku anayaan haddii dowladda amni ku filnaan weyda anoo ku hadlayo magaca golaha mar kale waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii muxuu ahaay ku geeriyooday 29kii bishan Oktoobar dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha Zoobe iyo Safari Hotel agaarkiisa